kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena. Barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa rahi guuleystay. Rahu waa mid ka mid ah xayawaanaadka sida caadiga u noolaan karaya bariga iyo biyaha. Balse sheekada tan waa mid aad u xiiso leh waxayna xambaarsan tahay macno iyo xaqiiqo dhab ah. Waaba waxa safar galay koox raax ah markii ay muddo soconayeen laba waxa kamid ah waxay ku dhaceen god dheer oo aad u madow. Haddaba waxa ay ku fakareen sidii ay uga bixi lahaayeen meeshaas oo isugu badbaadin lahaayeen naftoodana ay uga saari lahaayeen godkaas madow ee aadka u dheerarka badan. Mid baa isku day sameeyay kadibna wuu dhacay. Banaanka waxaa jooga qayb ka mid ah kooxdii oo saaxiibo la ah labadan raax ee godka madow ku dhacay. Qosol iyo isu jiibin bay isu sameeyeen oo way ku jeesjeeseen. Mar labaad buu isku dayay uuna dhacay bartiibuna ku baktiyay. Balse kii kale isma dhiibin oo mar walba isku day iyo farsamo uga baxo hogaas ayuu ku mashquulsanaa. Ugu dambeyn aad wuxuu u dadaalaba wuxuu ku guuleystay inuu ka soo baxo meeshii. Su'aal baa la isweydiiyay waxa la yiri maxaa labadii raax kala duway oo midna meeshii ugu geeriyooday mid kan kalena uu u badbaaday. dabadeed jawaab ah waxaa soo baxday in uu mid ka mid ah rahan u dhagalaa oo qayladii iyo niyad jabkii ay ku dhawaaqayeen uu ka dhagalaa. waa cajiib waxa dhacday qiso aad u yaab badan. dabadeed aakhirkii wuxuu ku guuleystay inuu banaanka u soo baxo. qisada tan waxaynu ka faa'iideysan doonaa ama dhacdada tan 4 qaybood. waa marka koowaad had iyo jeer ku dhiiro ama ka dhagalo waxa ay ku dhawaaqayaan dadka ku niyad jabinaya. marka labaad isku day inaad ku celceliso wixii aad doonaysay muddo fogna ha kugu qaadatay waad gaaraysaa. waa marka saddexaad waxaynu ka faa'iideysanaynaa dhacdatan inaadan eegin duruufaha iyo dhibaatooyinka kugu hareeraysan amaba gadaaman ee ka faa'iideyso jaaniska iyo fursadaha ku hor yaala. waa marka shanaad marka afraad waxaynu ka faa'iideysanaynaa waa inaad ka dhagalaataa waxa saaxiibada iyo dadka kugu dhow ay ku dhawaaqayaan oo erayada ay ka midka yihiin ma awoodid ma samayn karaysid iyo dhaqaale uma haysid. qisada rahi guuleystay intaas bay inoogu ekaanaya. fadlan ku xidhnow channelkeena, subscribe saar kadibna furo gambaleelka si aad u hesho muuqaalada cusub ee soo gelin doono. mahadsanid.